السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه السنة مدنية وكسر هذه يوتيوب channel كنا ما أنتم حاليا إني أد وده بقدر أنت كذا كلين كار واحد يقعد سنة تجنا فرصة سبسكرايب لنا مثلا ما تسنديني درتنا وحاول سيفيد كلنا أنا ميجينا صبح يقول لهم يعني كانوا لهم مجاب شكيرو وانين كجر الدادة دنيرني ماذا سمحهم وقف هذا فالحم كاسو فالحمدي سوق اللوج سوري عتي شغاليسا سيدو كلنا ضدك ونعم فالحمديسا واسي حتى مركي ودد الصعني والدك العرير جرام ولا عين جري وحاسدنا وحكد بي فالحمديسا حتى مالي ما كمد وحصور راعي ترين تو ترين كسرنين وحلوك من جبر يبدأ مركيني كان رئيس المركي وقيلسي حين شكتني كان نصيق الدن وتابتجر كده دتك المركي ويرو من استنقل كاين مش كصصارين ayago xataa aanu weydiin ra'yigiisa wuxuu arrintan ka dhigi lahaa maadaamuu aad u foolxun yahay sigdhan uu eegay qof tuugtuug camal ah waxay noqotay maalmaha way sii socdeen tooreyana maalmo kadib waxaa lasoo istaajiyey maxkamadda wuxuuna ku eedaysnay dembi xadgudub ah kaasoo u geystay gabar la saarnay tareenka ugu dambeynna toora waxaa lagu xukumayaa 3,000 oo lacagta jabaan ah markaas kadibna xaafadiisa ayuu kaga soo laabanaya maalmahan sidaas ayay ku dhaafayaan asigoo gurigiisa iska jooga maadaama uusan wax shaqo haysan shaqadiisiina laga soo buriyey sidoo kalena markan uu saaran yahay xukunkaasoo dembigiisa oo asiga geystay wixii waqtigaas ka dambeeya toorihin nolosha ayuu si dhab ugu dhacaya wuxuuna noqonayaa qof keliya iska sugaya geeridiisa kaasoo aanan lahayn qofka naxaayo iyo qof soo dhaweysanaya intaba balse saasoo tahay maalin maalmaha kamid a fariinaya kombyuutarkiisa ugu soo dhacayso taasoo sheegaysa in la laayaa kumanaan qof kuwaasoo sikadiisa looga waayay guryihii ay ku jireen toorihinna markuu sii akhriyo warbixinta wuxuu ogaanaya dadkaas inay dheeleen geem moodaya caalam kale balse markii caalamkaas galagalaan ay weynayaan cumrigooda kala bar markuu intaas maqlaa toorihin wuu qoslaya isigoo malaynaya waxyaabahaas in iska yihiin waxyaaba khuraafaad ah wuxuu leeyahay caalamka hadda ku nool mayne caalam kale miyaa jiro dhab ahaantii taasi waa mid lagu qoslo markaas wuxuu sii jeesanayaa dhinacaasii daaqadiisa wuxuuna nintii ka leeyahay taasina waa arrin fiican wuxuuna leeyahay dadkaas galaa caalamka kale waxaa laga yaabaa inay ku jirin xaalad adag taasoo ku khasabtay inay doortaan caalamkaas dhab ahaantiina waa mid u fiican ayaga oo caalamka maba haba mid cadaalada markuu intaas dhaw isla markii waxaa soo dhacaysa fariin cusub taasoo sheegaysa inuu geli karo caalamkaas tooriyanana marka kuwaad wuxuu malaynayaa inuu qof ka jabsaday kombyuutarkiisa qofkaasna uu ku dhedheelayo oo ilaa hadda asiga maba aaminsanaba inuu jiro caalam kale isla markiina fariinta ayuu furaya markiibana waxaa usoo baxaya magaciisa numbarkiisa iyo meeshuu degan yahay markaasna wuxuu xaqiiqsanayaa arrinkan uu yahay mid dhab ah markiibana wuxuu go'aansanaya inuu barnaamijka horuusii wada ilaa meesha ugu dambaysa uu gaarayo markuu barnaamijka horuusii galana waxaa usoo baxaysa shaashadan taasoo loogu sheegaya inuu dooran karo qaabkuu noqon lahaa markuu caalamkaas galo yacni haddii aad doonaysid inaad noqoto mid qaliira waad noqon kartaa haddii aad doonaysid mid buuranna waa noqon kartaa sidoo kalena awooddaa rabtid waa heli kartaa dartaan ninkaana markuu arrinkaas arkay isla markii wuxuu bubuuxinayaa meelihii bannaanaay wax walbana wuxuu geenayaa meesha ugu sarrayso ugu dambeynna waxaa loo sheegaya wax walba inay diyaar u yihiin laakiin waxaa looga tegayaa hal shay kaasoo ah inuu taabtaamo falgal la sameeya gabaarsigana markiiba uu aqbalaya asigoo niyadda ku hayo qof asigoo kale intaa inaysan gabar soo dhawaanaynin waxay noqotay ugu dambeyn foomkii uu buuxinaya sida uu jooga ayuuna hal mar meeshii uu jooga ka midqaya marka ugu horreyso indhaha kala qaadan wuxuu arkaya asigoo jooga meeshii watay jooga maahana meel kale haataawada ugu dambeyn arrinkii waa uu shaqeeyey tooriyanana markan wuxuu kasoo kacay caalamkiisii mahayna caalam kale asigoo jirkiisu isbedelay markan wuxuu noqday mid ka foolxun markiisii hore xataa asiga markuu saarko uu iska naxaya asigoo la yaabaya jirkiisa sidoo noqday iyo qaabka fudud uu jirkiisa isku bedelay intaba waxay noqotaba wuxuu halkaas kula kulmayaa 3 qof kuwaasoo ayagana sidiisoo kale inta caalamkan la keenay markiibana halkaas ay isku baranayaan kan waxaa lagu magacaabaa seji gabadhan waxaa lagu magacaabaa rinka halka tan ayadana lagu magacaabo sayka tooriyanana markuu kala barta tiimka asigan wuxuu sheegayaa magaciisa afartoodana sidaas ay isku wada baranayaan markaas kadibna tiimkii kale waxay iska galayaan sheeko halka shakeero asigan uu iskaga soo tagayo markaas waxay imaanayaan qaanad meesha ku taalay markiibana halkaas ayuu furayaa asigoo wax raadinayo markiibana wuxuu halkaas ku arkayaa hal shilin oo ka samaysan dahab balse markuu taabo maaga buu baabaaya shageeluna markuu dib u fikiray wuxuu ogaanayaa markii uu foonku buuxinayo uu ku daray inuusan lacag taaban karin taasoo ka macnaa inuusan weligiis intuu inta jooga lacag taabanaynin waxay noqotaba tiimka hal meel ay iskugu imaanayaan markaas waxay helayaan dhar iyo hub meel yaallo dharkii iyo hubkii ayayna si wada jir wada qaybsanayaan dhammaantooda sidoo kalena lacag meeltaala ayay arkayaan lacagtana markaas waxaa qaadaya tiimka mid kamid ah markiibana waxay go-aan ku gaarayaan inay aadaan magaalo kala dhawood meesha hadda joogaan taasay ka arkeen qariiradii ka dhex heleen isla guriga arrinkaasna dhammaantooda isku waafaqayaan isla marka ugu horreysay furaan albaabkii ka bixi lahaayeen waxay goonta ku arkayaan bahal taagan kaasoo diyaar u ah kii soo baxaa inuu qabto kadibna uu halkaas kusoo gabagabeeyo laakiin taas waxaa ka diidaya wiilkii la socda tiimka markiibana wuxuu soo afjarayaa bahalkii meesha taagnaa soo adeegsanaya hubkii uu ka dhex helay guriga balse sheekada halkaas kuma ekaanaysa waxaa goobta soo gaara
gaaray kumanaan kun oo bahalkan la socday. Markaasna waxaa halkaas ka qarxay dagaal u dhexeeya tiimkii iyo bahaladaas. Tiimkan waxaa u dagaalamayay keliya 2 qof, halka labada kale ayagana ay joogeen guriga. Mid waxay ku mashquulsanayd hagaajinta hubkeeda, halka Tooraa asigana oo qiimeyn ku wada dagaalka halkan ka socdo. Waxay noqotay asigana ugu dambeyn waxaa soo gaaray bahal ka mid ah bahalada. Markiibana darbada ayuu ku dhufanaya, taasoo saameynaysa Tooraa. Soo xanaaqsanayuuna marka la soo kacaya wuxuuna leeyahay bahaliyo anigana waa inaan ku tusaa awoodeyda. Markiibana ushii uu wato ayuu madaxa ugu dhufanaya, se bahalka xaba kama tarayso. markiibana bahalka warar kale ayuu soo qaadaya. isla waqtigaas Tooraa wuxuu soo xasuusanaya xilligii hore uu buuxinay foomka iyo markii uu buuxinaya awoodiisa. markiibana awoodiisa oo dhan ayuu iskugu keenaya jirkiisa. mar ayuuna ku dhufanaya usha uu gacanta ku haysta bahalkana markaas uu baabaaya. asigana markiiba waxaa soo bixisa shaashad, taasoo sheegaysa awoodiisa inay hadartan korortay. waa heerka awoodiisa markaan waxay si kiisas u tagtay 71. waxay noqotay markaas kadib wuxuu buuxinaya waxyaabo yaryar kuwaasoo ayagana u gaarsiinaya meesha ugu dambeysa nambarka. markaasna waxaa hal mar jirkiisa soo galaya awood aan la qiyaasi karin, isigoo dhan hal mar ayuu wada iftiimaya. sidaas wuxuu ku helaya awood ka saraysa saaxiibadiisa kuwa haystaan. dhinaca kale saaxiibaday dagaalka ku jiro markay dhammeeyaan dagaalka awoodooda way ziyadaysaa, laakiin ayaga ma dareemayaan midaas. sidoo kalena ma arkayaan wax shaashadu ayagu soo baxaayo. isla waqtiga Shigeru asigana waxaa soo weeraraya bahal cusub, asigana asuuska waalinba fartiisa keliya ayuu isticmaalaya. bahalkan markiiba hawada ayuu galaya. waxaasoo dhan waxaa sabab u ahay awooduu hadda hela Shigeru. waxay noqotay markuu gadaal fiiriyo wuxuu arkaya gabadhii kale intuu la joogtay, taasoo weli ku dhiban inay habaysato hubkeeda. markiibana wuxuu soo bandhigaya caawimo ayadana maadaama maanta dhan ku dhibtoonaysa isla markii ay aqbalaysa. Tooraana markuu bahasha gacanta ku dhigay isla daqiiqadii ayuu sameynaya oo waqti dheer kuma qaadanayso. markaas kadib wuxuu isku dayaya inuu baroobeeyo hal filaar ayuuna kor u ridaya. filaartii cirka iyo aadaysa meelay ka baxda ayaana la arki weynaya. markuu arrintaas daqiiqad kasoo wareegtana cirka waxaa kasoo baxaysa calaamada cirka ku samaysmatana waxaa kasoo baxaya daraagoon aad u weyn, kaasoo leh midabka dahabiga. markiiba wuxuu si kan ku baabi'inaya dhammaan bahaladii meesha joogay, taasoo qof walba meesha jooga ka yaabinayso. awooddaasna waxay ka mid yahay awoodii uu hadartan helaya Tooraa. waxay noqotay bahalada maysan ahayn kuwa dhammaanayo, mar walba kuwa la laayna kuwa kaloo cusub ayaa soo baxaya. gabadhii bahalkaada loo sameeyeyna markiiba waxay soo qaadanaysaa filaareeda. hal mar ayayna bahaladii waxay ku ridaysaa kumanaan filaaraha, balse nasiib xumo bahalada hal xaba oo kamid a filaaraha kuma dhacayo oo gebi ahaantoodaba waxay kormarayaan bahalada. gabadhan ilaahay filaaraha ay ka dhammaynaysa way waday ayadoo aanan xataa hal xaba ridin, balse markay ka dhammaadaan waxay dareemaysaa xishood maadaama saaxiibadeeda oo dhan ay heleen awoodo, sidoo kalena ay muujiyeen inay dagaalami karaan. halka taas bedelkeeda ayada aysan dilin wax bahal u dhaho, sidoo kalena ay iska baabiisay hubka keliya ay haysatay. Tooriinan markuu arrinkaas arkay isla markii awoodiisa ayuu isticmaalaya. qori meesha yaala ayuuna taabanaya. qorigan wuxuu isku bedelayaa filaaro badan. tani waxay ka mid yahay awoodii hadartan uu helaa Tooriina mid ka mid ah. wax walba u taabto wuxuu bedelan karaa hubka uu rabo. waxay noqotay gabadhii halkii ayay ka wadaysaa weerarka. daqiiqadiina waxay tuuraysa kumanaan filaaraha. saasoo tahay markaana dan waxaa caawinaya saaxiibadeeda. waqti dheer kadibna ugu dambeyn bahaladii goobta jooga oo dhan ayay baabiinayaan. bahaladaas kadibna wax kale oo bahaloo soo baxaya ma laha, taasoo xateen u ahay inay tiimkan baabiyeen dhammaan bahaladii ku hareeraysnaa eriyada. markaas kadibna socod aad u dheer ayay soo galeen. ugu dambeyn waxay imaanayaan magaaladii ay ka dhex arkeen qariirada ay heleen. magaaladan waxaa lagu magacaabaa Area. markiibna tiimka si wada jirayay magaalada usoo wada galayaan. waxay cunaan ayayna hore ka raadsanayaan. Tooriina waa uu ka horayaa maadaama uusan asigi haysan wax lacaga, taasoo ku cuni karo cunto. markiibna waxay imaanayaan meeli ku taalla barkad, halkaas ayuuna iska fariisanaya siduu iska fikirayo kana fikiraya tallaabada xigta uu qaadi lahaa. intuu halkaas fadhiyo iskana fikiraya waxaa u imaanaya bisa, taasoo aad u qurux badan. isigana markiiba uu ka helaya wuxuuna isku dayayaa inuu taabto, balse markiiba waxaa maskaxdiisa kusoo dhexaysa sharcigii ah inuusan taaban karin wax gabar ah. markaasna wuxuu isleysoo laga yaaba bisada inay tahay mid gabar ah, taasoo haddii aad taabto dhibaato ii keeni karta. intuu bisada iska fikirayn waxaa si kas isugu imaanaya gabadhii hadday caawinayay, taasuu soo iibisay cunto ayadoo abaalgud ugu dhigaysa maadaama uu hadday caawiyay. isigana wuxuu isku dayaya inuu si degan ugu qaato cuntada, si lama filaan ayuu u taabanaya. markaasna jirkiisa waxaa ka kacaya maaso. daqiiqada xigtana waxaa laga jaranaya dhibco aad u fara badan, taasoo ka macnaya in cumrigiisa wax ka go-een. haddeertan asxaabe sheekadan halkaas ayuu ku dhammaanaysaa. waan jeclaan lahaa inaan kusii daro balse waqti ayaanu saamixi lahay. insha allah sida ugu dhaqsiyada ban qaybtiisa labaad idin keeni doonaa, balse waxaa idinka codsanaya haddaad janalka cusub tahay like, comment, subscribe, no saar.